labaad oo ah inuu quraanku Nabi Yuusuf ku sheegay nin wanaagsan oo boqor ka noqday waddanka Masar, halka dhinaca kale diinta Masiixigu ay u qirsan tahay inuu ahaa Nabi Yuusuf Fircoon. waxa uu sidaa ku socdaba Dr. Gerard markii dambe uu arkay xaqiiqda cad ee aan dhinacna loo dhaafi karin waxay ku noqotay arrin mucjiso ah. haddaba Dr. Gerard sanadku markuu ahaa 1993 waxa uu go'aan ku gaadhay inuu shahaadada qabsado weliba dadka hortooda. sidoo kale waxa uu diinta ugu yeedhay xaaskiisii. wixii intaa ka dambeeyay Dr. Gerard waxa uu bilaabay inuu alifo kitaabo fara badan oo ku saabsan dacwadda diinta Islaamka, waxaana buugaagta ka mid ahaa buugga lagu magacaabo Masiixiga iyo Islaamka, iyo sidoo kale buugga lagu magacaabo Ibraahim Khaliilullah, iyo sidoo kale buugga isna la yiraahdo taariikhdii Mareykanka, iyo weliba buugaag kale oo fara badan oo ku kalifay dad badan oo Masiixiya inay qaataan diinta Islaamka. ilaahayna isaga ayaa hadeeya cidda uu doono. waad ku mahadsantiin daawashadiina, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.